الرحمن الرحيم marka hore waa maasantiin bahda saxaafadda waxaan rabaa inaan idin la wadaago warsaxaafadeed degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Ali Xasan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Galmudug xafiiska madaxa xukuumadda warqadda suumadeedu ay tahay dowlad goboleedka Galmudug 162 kuna taariikhaysan 27 bishii 8 2019 ujeedo warsaxaafadeed dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii ay la gashay maamulka dowlad goboleedka Galmudug ahlu sunna wal jamaa waxayna taas ka doorbideen weerar iyo dagaal qaawan iyagoo magaalooyinka Galmudug ka soo buuxiyay ciidamo ay garwadeen ka yihiin madax ka tirsanayd argagixisada al-shabaab kuwaas oo meesha ka saaray nabadgelyadii deegaanada Galmudug ay haysteen maamulka iyo shacabka reer Galmudug kadib markaa aragnay inay burbureen dhammaan heshiisyadii la galay qatar weyn ka muuqato waxa loo sheegayaa lana farayaa ciidamada qalabka sida shacabka reer Galmudug inay u diyaar garoobaan difaaca naftooda dadkooda dalkooda iyo diintooda ilaaliyana nabadgelyadooda faraha laga bixiyay beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya waxaan u cadeynaynaa in dhibaatada halkaas ka timaada ay dowladda federaalka Soomaaliya mas'uul ka noqonayso waxa kale oo aan beesha caalamka u soo jeedinaynaa in ay doorkooda ka qaataan arrinkan madaxda AMISOM waxay noo sheegeen inaysan ciidankooda qayb ka noqon doonin duulaankan qaawan cidii ku soo duusha magaca AMISOM waxaan u arkaynaa inay yihiin kuwa u soo duulay inayna qabsadaan waana iska difaaci doonaa waxaana beesha caalamka ugu baaqaynaa inay ka qaataan doorkooda caalamiga ah wabillahi tawfiiq